بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم جميعا. walaalayaal caawa oo 10kii bishii Muharram 1447 hijriyada ah waxaan insha Allah ta'ala kelmad kooban ka oran doonaa maalinkan Ashura ah oo bari ku beegan iyo fadliga uu leeyahay islaamka dhexdiisa iyo sida nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam uga hadlay. waxaanu kaloo ka hadli doonaa fadliga maalinkan uu leeyahay iyo waxa uu ku kasbaday iyo sida fadligaasi uu ku yimi oo ah ama xidhiidh la leh nabi Muuse kaleeyhi salaam iyo Fircawn wixii dhex maray iyo sida Rabbi subhanahu wa ta'ala ugu gargaaray nabigiisa Muuse kaleeyhi salaam. inagoo carabaabi doona waxoogaa fawaa'idaha kooban oo aynu ka qaadanayno qisada nabi Muuse kaleeyhi salaam. walaalayaal Ashura waa maalinka tobnaad ee bishan Muharram oo kamida bilaha marka waxa weeye xurmada leh. bishan guud ahaan xurmada leh ee Muharram waxa u soo arooray fadli nabigu leeyahay kaleeyhi salaatu wassalaam soon la soomo oo Ramadaan ka dambeeya ama Ramadaan qeyrkeeda waxa u fadli badan bishan Muharram soonka la soomo. xadiiska Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu warinayo Bukhari iyo qeyrkiiba soo saarayaan waxa nabigu leeyahay kaleeyhi salaatu wassalaam afdalu as-siyam ba'da Ramadan shahru Allah al-Muharram. soon la soomo waxa u fadli badan marka Ramadaan laga yimaado bishan Muharram soonka lagu yimaado. waxyaalaha sunnayaasha ah ee la soomayo ee bishan dhexdhacayana waxa u fadli badan soonka la soomayo maalinka tobnaad oo ah yawm Ashura la soomayo. waana maalinka bilaha bishan dhexdeeda bishan Muharram ah ee koobaad waa bishan Muharram maalinka ugu fadliga badan weey al-yawm al-ashir. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warḍah waxa uu leeyahay maan arag nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku dadaalaya maalin soon uu soomayo oo sunna ah sida ugu dadaalayo maalinka Ashura. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. مالك العاشوراء سيد النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يومالنا وقد ذا البدن هاي وسنة مارك بمعنى أدبو قدرني النبي عليه الصلاة والسلام. وحصور ورأي النبي عليه الصلاة والسلام كسوغا صون كلا صوم يومانك عاشوراء إن إلهي سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تأوغد عفيو ذنوب تسند أي سميني ننبي يقفك سند مركا وحوي كدعيي سند كي أصور عفي كدعيي وحا إلهي سبحانه وتعالى أوغد عفيا صونك أصوم يحل كامالي تاسنا وحالا يقاضنا إياه إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسو سيدا ووية ودنبك سند لسميي عبادة كوبا مركا صون مان قرأت صون طيبا لا يغدافي وإلهي سبحانه وتعالى حاجة ترتري. إلهي سبحانه وتعالى ديق ريسا يدنب دافكي سوينتو اللي يجي بين مركا كقاضرين. أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحاوليه نبي صلى الله عليه وسلم وحاولي صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي صومك الله صوم يومانك عاشوراء طوانك بش محرم وعن إلهي سبحانه وتعالى كرتينيا إن لقلنا في ذنوبتا هل سنو وكهر رئيسي مانك لصومي إن إلهي سبحانه وتعالى ومركا وحوي كداف. أدبور على مانك عاشوراء ومانك فضل عليه
وعو كمدي هي من أيام الله العظيمة ما نمها إلهي واوين أي كمدي نبينا صلى الله عليه وسلم ووينين رسولك عليه الصلاة والسلام وحي ووينين إلا وينيانا وراعس لراعي السنة ديسي يا طريقي سلراعي وياه بخاري مسلم وحكوي من حديث كأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه وحوليه هي مالك عاشوراء وحاي أهي مالنا يهود يقانان عيد مالنا يهود عيد يقانان وأي مركع فرحان أي دماشاران بي أهي مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحاولي فصوموه أنتم يقول فرحدي عيد هو أركاني إذنكم الصومة وعبادة صومك لك عليه عبادة صومك لك عليه marka sababta marka waxa way yahuudu ay u arkayeen ciidna waan arki doonaayo maadaama ay sheeganayaan inay nabi Muuse kaleeyhi salaam raacayaan mar hadii reer bani Israa'iil oo ahaa atbaacdi nabi Muuse kaleeyhi salaam la badbaadiyay oo fircoon iyo ciidankiisii laga badbaadiyay sida daraadeed bay u arkayeen ciid ay marka farxaan oo ibtihaaj la yimaadaan قصة النبي موسى وبلارنتهاي هي علماء تلمامة وقصة أقول بدنا القرآن كلا سوعليو النبي موسى عليه السلام والنبي أقول بدنا القرآن كلا وشيء باسمه المجرد ما عيسى لسوعل عليه سبب تمرك قضية النوع عسى علماء قاركود وتلمامان وحيليهين أمة بني إسرائيل هي أمة نبي الله محمد وآخر الأمم آد بئس شبهان سيدا درجة بقرآن كميلا بدن لغو سوعد عليه وحكى العلماء أي تلمامان صراع يلو لن قد احمري حقا يا باطل مركا الله أخر الصلاة أما مركا وحوي لديقنا يقصد نبي موسى وأمد أعطوا درويان سيدا درجة أي مركا وحوي قرآن كإن بدن لغو سوعد عليه ما دام صراع حقا يا باطل كودحي أو يهيمت قائمة إلا قيامته أي استاجس حقا يا باطل كلجدن كي لجدميان ما دام وياها واحد شري أو باقي نقنية أو مرة ما قاينين سيدا درجة باقي صدى النبي موسى عليه السلام لو سوع العلي وحكى له مركع علماء قراءة المامة صوابته لو سوع العلي نبي موسى قصديس أما نبي موسى شيقديس لو سوع العلي وإن مركع وحوي أمدا أي كصبرته حق سيدي نبي موسى عليه السلام وقصبري وأنا مرة كلب بقليني marka qisadiisu waa qiso aad u dheer dhammaan qisada nabi Muuse waxa lagu sheegay suurada Makki ah iyaduna malxad kale wasataqaaniin quraanku wuxuu u qaybsamaa Makki iyo Madani waxa la oranayaa hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii ka horeeyay waa Makki bimacna Makka loo nisbeeyay hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii ka dambeeyayna waa Madani marka qisada nabi Muuse badana waxa lagu keenaa suuradaha lagu keenaa ay yihiin suur Makki ah illa suurada kooban mooyaan oo suuratu Taaha iyo Qasas iyo suur kala mid ka ah dhammaan Makki weeyaan waxa kale oo la tilmaamaa dhammaan suuradaha Haamim ka bilaabma nabi Muuse qisadiisa waa lagu tilmaamaa iyaduna malxad kale weeyaan sababta nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligii uu Makka joogay suuradaha lagu soo celcelinayay qisada nabi Muuse waxa filayaa inay iska muuqato oo de Quraysh oo amar ku taaglaynaysa ayaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dacwadda ku dhex fidinay nabi Muuse alayhi salaam nabi Muhammad wuxuu dacwadda ku dhex fidinayay Quraysh oo calamaynaysa oo awoodeedii iyo jabaruudkeedii markaa Makka ku haysata ilaa uu markii dambe ka qaxay oo ka hijrooday nabi Muuse alayhi salaam reer bani Israa'iil oo la adoonsanayo la dhibayo oo caruurtooda la laynayo oo fircoon marka ku amar ku taaglaynayo ayaa Ilaahay ka soo dhex bixiyay marka labada ummadood way ishabahaano ummadda nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xilliga quraanka soo degayay iyo xilligan ay maanta joognaba waxay shabahdaa ummadda reer bani Israa'iil fircoon ku amar ku taagnaynay sida daraadeed baa qisada loo soo celceliyay idoo nabiga alayhi salaatu wassalaam loogu qalbi qaboojinayo in rasuushii ka horeysay iyo ummadihii muslimiinta ah ee ka horeeyayba
inay xaqa iyo islaamnimada ku dhimteen oo qofka muslimka ah ee maka ku nool ee nabiga sallallahu alayhi wasallam rumeeyay ee dhibku ku dhacayo waxa la tilmaamayaa reer bani israa'iil inay dhibka dib la mid mareen oo ku sabreen caaqibada iyo cilu dambeedkana nabi muuse iyo intii raacday ay yeelatay sida daraadeed baa qisada loogu soo celcelinayaa bi culimadu leeyahay marka xilliyada dacfigu jiro ee ummaddu marka iska taag daran tahay ee laga gacan sareeyo qisaska noocaasi ilhaam bay u yihiin waxaanay u tilmaamayaan in rabbi subxaanahu wa tacaala rusushiisa iyo dadka mu'miniinta ah u gargaaraya walow halla imtixaanu halla ibtileeyaba cashuuraa waxay khusaysaa bilowga ibtilaagii dhammaadka ibtilaagii fircoon uu imtixaanayay reer bani israa'iil iyo ka badbaadkii ka badbaadeen maalinkaas ayuu cashuuraa ay khusaysaa oo rabbi subxaanahu wa tacaala nebi muuse iyo intii raacday waxa uu ka badbaadiyey fircoon iyo ciidankiisii sidaa daraaddeed farxad lagu farxayo ilaahay inuu dadka muslimiinta ah iyo nebigaas badbaadiyey ayaa marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayaa in loo soomo bukhaari iyo muslim waxaa ku yimi xadiiska cabdillahi bni cabbaas uu warinayo waxa uu leeyahay qadima annabiyu sala allahu calayhi wasalam almadiinata fara'a alyahuuda tasuumu yowma cashuuraa nebigu waxa uu yimi magaalada madiina markaasaa wuxuu arkay yahuudii oo soomaysa maalinkii cashuura waa maalinka tobnaad ee bisha muxaram markaasuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maa haada maxay taasi ka dhigan tahay faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan oo la soomayaa yowmun saalix waa maalin weyn haadaa yowmun naja allahu bani israa'iila min caduwihim fasaamahu muusa maalinkani waa maalin reer bani israa'iil ilaahay cadowgoodii ka badbaadiyey oo fircoon ah kadibna nebi muuse soomay isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaya bay yidhahdeen faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi fa ana axaqu bimuusa minkum aniga oo nebi muxamed ah baa idinka mudan muuse calayhi asalaam idinka oo yahuud anaa idinka mudan waayo waxaa walaalaynayaa waa nubuwada iyo risaalada iyo islaamnimada weeyaan fasaamahu nebigu waa soomay wa amara bisiyaamihi in la soomana nebigu sala allahu calayhi wasalam waa amray waxaa kaloo marka waxa weye riwaayaadka qaarkood ku yimi nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu magaalada madiina soo galay waxa uu markaa arkay yahuudiya soomaya markaasaa marka waxa weeye yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maalinkana soomaysaan waa maxay markaasay yidhahdaan yowmun cadiimun anja allahu fiihi muusa wa qowmah waqadaqa fircawna wa qowmah waa maalin weyno maalinkii nebi muuse calayhi asalaam la badbaadiyey iyo qoomkiisii fircoon iyo qoomkiisina maalinkii la halaaga wey fasaamahu muusa shukraa nebi muuse calayhi salaam baa soomay isagoo ilaahay u mahadnaqaya fanaxnu nasuumuhu anaguna waa soomaynaa yahuudi baa odhanaysa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi fanaxnu axaqu wa awlaa bimuusa minkum annaga ayaa idinka mudan oo idinka xaq leh muuse idinka kadibna waa soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa amara bisiyaamihi dadkana wuxuu amray inay soomaan maalinkaasina waa maalin weyn marka maalinkani inuu maalin weyn yahay qur-aankaa tilmaamay inay maalin cibro ku jirto inay tahayna qur-aankaa tilmaamay maalin imtixaan iyo balaayo ay ku jirtana iyo marka waxa weeye ibtilaana waa maalin ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay fii suurati الshucaraa waxa uu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay ina fii dalika laaayatan wama kana akharuhum mu'miniin arrinka noocaasa ah in markaa la badbaadiyey nebi muuse oo fircoon la halaagay waxaa ku sugan aaya cibra ku sugan wama kana akharuhum mu'miniin marka waxaa dhex maray nebi muuse iyo fircoon cibra ku sugan cibradu way ugu sugan tahay waxay ugu sugan tahay daalimka iyo madluumka mid kastoo wax dulminaya iyo mid kasta oo la dulminayo qisada nebi muuse iyo fircoon waxay ugu sugan tahay cibro iyo waanay ugu sugan tahay waayo daalim kasta mid kastoo wax dulminayo oo xadgudbay waxa uu shabbahaa fircoon buu shabbahaa mid kasta oo markaa kaa xadgudbay hor istaagayna waxa uu shabbahaa nebi muuse calayhi salaam buu shabbahaya
marka mid kastaba waxa ugu sugan dhamaadka qisada fircoon iyo sida dulliga leh uu dhamaaday iyadoo laga soo warramay sidoo ku bilaabay duqyaankiisa iyo marka xadgudubkiisa oo sawir dhameystiran laynaga siiyay qof kasta ama dhaalim ha ahaado ama madluum ha ahaado cibra ugu jirta iyo imtixaan baa ugu jira xujana ugu jirta marka lagu oogay waxa kale rabbi subhanahu wa ta'ala fi surati ad-dukhan wa tilmaamaya wa aataynahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin ilaahi subhanahu wa ta'ala reer bani israa'iil waxa uu siiyay calaamado cajab badan oo marka waxa uu imtixaan weyn iyo xujo ku ah waxa kamid ah badbaadintii laga badbaadiyay fircawn iyo marka ciidankiisii laga badbaadiyay markii marka fircawn uu xad gudbay nabi Muuse alayhi salaam sida taqaaniin ba ilaahay soo saaray uu xad gudubka noocaas la yimi xujajkii iyo baraahiintii la hordhigay marka waxa weey islaamnimada loogu yeeray reer bani israa'iil cadaabka iyo ciqaabka ay dhibtu ku hayo inuu ka joojiyo la amray nabi Muuse sida uu sheegay xujooyinkii iyo aayaadkii ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dul cadeeyay taasi ay u ziyaadisay kufri iyo gaalnimo iyo canaad ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala nabi Muuse ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyay yani nabi Muuse alayhi salaam markii la diray ilaa fircawn u tag oo sida dacwada uu sheegay oo xaqa u bandhig fircawn saxaradiisa soo ka haystay saxaradii ay ogaadeen in marka waxa weeye waxa nabi Muuse alayhi salaam ku sifaysay inaanu sixir ahayn ay raaceen fircawn marka saxaradii uu marka laayay oo si foolxun u laayay oo meeshii lagu kala dhaqaaqay oo ay noqotay xujada wuxuu kaga jawaabo u waayay ayaa wuxuu ziyaadsaday duqyaan iyo xadgudub buu ziyaadsaday kadibna nabi Muuse alayhi salaam ilaahay buu bariyay وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دعاء أم هبار كاس أيكو هباري نبي موسى فرعون أنت راعي فرعون يا ملقيسي أنت يمكن قاريسي راعي مركب حوي هبار كاس وكو هباري وحو موسى لي عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وحاد سيسي أنت مركب حوي قوله سأهيد زينة وأموالا حمتي يقرح يعدد باتيسي في الحياة الدنيا نرشنا الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك إلهي قواسي وقار كلمي جدكاي كلمي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم إلهي مال كودي هنتي قودنا بابئي قلبي قودنا إلهي مركا دبول فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يعني مركا رمين إلا عذاب درنا يركيان عذاب درنا يركيان ونركي دونا يوسيدا ونبي موسى وحباري أيو فرعون كل انت إلا أي جيردي نفتك الحميها سوى قادي إلهي سبحانه وتعالى ما أعلم رمين مركا سو يقين صدي فرعون ويشري مركا هذا إلهي رميس تينا إلهي سبحانه وتعالى كما أقبلنا وأركي دونا سورة يا رب سبحانه وتعالى وحوليها يسوى نبي موسى كورميا فدعا ربي جيبوا بريين أن هؤلاء قوم مجرمون إن فرعون يتركي أيهن قارحة قدبي أي النبي موسى عليه السلام إلهي بريين إلهي سبحانه وتعالى وكأجيبه قال قد أجيبت دعوتكما والدك أقبل بريد الناس عليك حلقة نوع عسى إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري نبي موسى إنه مركب بحو ريب بني إسرائيل لو مركب حوي صاروا يجوا كبحية مركب مصر كبحية هو كبحي مركب إسك قريان فرعون يوركيس إسك قريان عدنا أنا لا تشن عدنا أنا كأمر قاضا وكإذا قاضا إلهي سبحانه وتعالى وحو وحي نبي موسى هبين مجدئة إنه مركب حوي ديلميو قوم كيسية تركيسة وصاروا وحنا لوط المامي إن فرعون أنا كهرين وصود بقلي فرعون إندي كهرين ماي ودي صوت وقاضية إذن كبحة عدنا لا تشارين عدنا كإذن قاضنينا وحا مركا هنتقاضن كريسان نقاط أو دقاقة على أمري نبي موسى تركي إنكم متبعون ولين سرع يا بني نبي موسى يرى بني إسرائيل واستوى قلين رجودي دمر كودي عرورتودي ماتودي
قف كمان وهرين مركا توبيه قبصدين لم يبق منهم أحد من أول الليل هبينكم مركو ساء الدميبة وإلى غاتين حتى تباعدوا في الأرض قالوا كي بيئات وقفوا هذا الميشي مركا وحوي وفرعوني وتركيس ويدقناي فرعون مركو بابر يستي يقوم كيس قف وجوابه أي واي يقوم بايساقي ريب بني إسرائيل حالي بي مركا وحوي كدقاتين لا داعي ولا مجيب يقوم بايسو مقضى فرعون الركاب وحناقي ريب بني إسرائيل قود أرق أي كسر صار فأرسل فرعون في المدائن حاشرين تضبو دري واردت خردن سوق يريبو وها عيدا هليسان يا واحد هليسان يا واحد عدد هليسان لما هلا سوير تضدك يسو أورورية أي ما تضدك يسو أورورية ومركب فرعون ويرى أي مركب وحوي درسري طب مركب إساء كسعودو تذكر كرا ويرى وعيدا كي يسجد برهدا أي مركب وحوي ويرى تذكيب مركب وحوي أخذ بدينية عيدا كي يسيبوا مركب وحوي توجيهنا يا وأخذ بدينية حولي إن هؤلاء كوا ريب بني إسرائيل عهي لشرذمة قليلون مركو أركي عيدا كي يسوي تلاقيه مركو أركي يسوي أنتوا عيود هيستو أي وحو قرصدو يريستي مركب وحوي ريب بني إسرائيل بقرصدي مركب سوري ودول آذو ير شرذمة ودول آذو ير وقليلون سيبير وإنهم لنا لقائضون عارنا وركوي إن الجنيه ونوع رئيسنا مركونا واجد كودا مرنون وإنا لجميع حاذرون حراننا ونقدكتونا وانكفلي إن سيدا صمينا إياه عدو بينه هاي على راس أيام مركو حوي أقبا وأنا وحا يرى الأركيساني إنه كعيبو مركو أخذ بدينا إياه إلا طبر شر بني إسرائيل وأنا من اللي قثيبين ومركو حوي لين هل مركب حوي لو رقان صدو مركو عيدنكي سي سكانين عيدنكي صحيح سياساتكي سي وحي باي مركب حوي اسكو دبرتين اي هورا كبخين فاتبعوهم مشرقين مركي واجي ببريي مركب حوي اي هوشود لما يستين بيسلا وراعين فلما تراءت الجمعان اما فلما تراءى الجمعان مركي لبدي كوخود اي سموقين ولا بدي كوحد ونبي موسى يقومكي يطلكي يا مركب وحوي فرعون يعيدن كيسي جنودي سي انت الراعي ويان واهل الحق اهل الباطل اهل الحق إلهي سبحانه وتعالى قرقاه كيسا يا نبي موسى عليه السلام هو قامتي سبي مركب وحوي اي وطن اهل الباطل كانوا وحي وطن وحي عيود هيستين وحي عيدن هيستين وحي وطن هانتي وحي مصر تالي waxay wataan wixii gaadiid Masar yaalay waxay wataan wixii hub Masar yaalay ayay wataan marka maadi ahaan loo xisaabtamo waxay soo dhigmayaan ma kan wuxuu ku qalabaysan yahay hubkii ugu casrisanaa wuxuu wataa gaadiidkii ugu casrisanaa wuxuu wataa maamulkii ugu casrisanaa ugu aansanaa ودي فرعون xilliga jooga waa xilligii marka waxa weeye cid marka ka hadal ka daba oranaysa ma jiro marka qofka aan iimaankiisu qawiga ahayn xoog ganayni markuu labada isbarbar dhigo wuxuu oranayaa warweyna jabnay nabi muuse intii la socotayna waa hadalka yiraahdeen waa la ina hayaa maanta bid inaga bixi maayo fircoon baynu gacanta u galay marka way shakiyeen qofka daciif iimaanka wuxuu wax ku miisaamaya waa wax u muuqda indhihiisa u muuqda way laakiin qofka iimaanka lehi wuxuu yaqiisan yahay balaqaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala وأن العاقبة للمتقين سكستو لبكو بطو سكستو لغا أود بديو حتى الحق تاغنتهي إلهي سبحانه وتعالى وكو قرقاري إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلهي وحليه وكان حقا علينا نصر المؤمنين قوشة ما هو حق عنتك وجرة ما فرعون هبينكم الصيحان inankii aad korisay ee gurigaaga ku koray ee marka waxa weeye adiga kugu hoos noolaa in xariistaada marka waxa weeye ku badbaaday ee seeftada kaga badbaaday ayaa marka waxa weeye mulkigaaga suulinaya oo xujada kugu oogay marna habeenka mu tashan
لكن الله سبحانه وتعالى شد وحود دبر يسقى يقانه حكمة ديسة يسقى يقانه سيدا درده وين على المرة حساب سنين ميزان كالدنيا إيه أنا حساب ستوي حق ما كنت أنت بسكون تاجي لبدي كوحوط وأهل الباطل كي أهل الحقية ويسمو مقدان فرعون بمركب وحويه سو عراتمي حقا نبي موسى يقوم كيسي وحا كحيغا بط حقا وحا كحيغا مركب وحويه فرعون يقوم كي وكحيغا اكزاكتلي وواحد ما تقزك تشرو ريق الزي حقا بط با كحيغتا حقا اسرائيل با كحيغتا من سعتان عن اهل قوم موسى بطي با سو خدي فرعون وكدن بيا ريق الزي صدح بقول زياده كيلومتر وحيب راعسن حقنا بد باكي حيتو عنقواتين كساريين حقنا يهود باكي حيتو مركا وحوي عدوي الهي رسولك ساعه مركا اصحاب موسى قال كم waxay yiraahdeen inna la mudrakun wala haya way badi ba xaqina inaga xigto ma tiiri karno xaqana fircoon bayna hayo inaga awood badan nabi musa alayhi salam wa hogaamiye waxiga ilaahay ku toosan وهجامي إلهي سبحانه وتعالى سبب أقرني ما نورانين أي نمرك وحوي وراء درسن وظهر البنو فرينا يا فرعون بيقول له شينينا ورينا هيا ولنا يقول است محاين السوء ودي عن أنت نوع سمان وقال موسى عليه السلام حسابت نوع سمان حتى الله ما هيسي يسوي وعد كإلهي بلنقات كيسن يين الإلهي هو جنين أي هو رسويه قال كلا إن معي ربي سيهدين الركوسة شكتين ماها يا إلى شرانيك إن معي ربي وحمعي أهاري ربي جيب أهاري سيهديني ويهنوننا يا تدبوا إيه بحنايا إلهي بقى إيجر جاري وتمامي وكامل اليقين يقين يا إيمان برعب وقوة رب سبحانه وتعالى وحوليه وحبين كقادم ما يفرعون إلهي بقى أمري سبحانه وتعالى إلى أن يصبحيه إساقا تدين وبحين إياه إلهينا بلان كيسو ما بينوبه هل كامر كي تاقنتها أي إلهي سبحانه وتعالى نبي مسوح يودي أشي وهيستين أي الله أمرين وبدا كل دفته بل قل بدلا كل دفتين قل بدلا كل دفتين ما حد كفي هذا هذا ميزانك أدو يكون ميزانته بدوين أقول كل دفتين ما حد كفي ليس إن أنا حكي قادم سما بدوين أنت هلا يقولي ما حكي طيب لكن ماشي وحي بقى كشرا بدا يا أبو ري يا الله سبحانه وتعالى أدونا حياتك أنت جدك إلهي سما ما حد بقي مركا حكمة إلهي سبحانه وتعالى نصر يجوش وحكاسين يمين على الكفلين من الآن الكفلين بإلهي سبحانه وتعالى كاسين ويكون كانوا لنا إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سكوشران بلا آن قعنتي سكوشران هير كستو أودي سكارتي سنتهينا بلا آن كو مركا وحوي إلهي سبحانه وتعالى أودي سو كوه الشقيني وحال أمرين إنه مركا وحوي أشي ساقول افتبطا فانفلق بدي بكار دنبال مي بدي أي كار دنبال ومعجزة من معجزات نبي الله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أودي سوانا تذكر صنطهي ما دام مؤمن بالله عز وجل وإذا قالت النبي إبراهيم سقوا طبل وصي وضه اللي هي بدبادين ويهي الله سبحانه وتعالى نبي موسى وفرعون دبتها يهي وحق النبت كحكتو اللي هي وجد بحيي والله سبحانه وتعالى إله نصر يقوش السي نبي محمد عليه السلام إنه الله يهي سبحانه وتعالى وين دقاته مركا في هذه القصة تتجلى عظمة الله عز وجل وحين غم قنيسة إلهي وين كيسا يا وديسا أي قصة إنه غم قنيسة ورابية لبيه توان أنبال بيكان لقوة بطي لبيه توان وطا كفر مي فكان كل فرق كالضوض العظيم بور وين بالمويسا بطي مركا وحوي ماشي كدن براتي ضبيلنا وين مرت مركا وحوي يبسا لا تخاف دركا والضوء قلان وماشي بيه مركب أي كب حين
ما أهمل مركا وحوي سيقين وبيه كسيقين قلتش لا تخاف دركا إلا جسوق رأو ماشى ديرجا أهل وقبته أو ديرجا فرعون وقبته أكبر رب سبحانه وتعالى وتلمامي ولا تخشى بطنها كبق فرعون كبق لا تخاف دركا ولا تخشى بطنها كبق كعبسا فرعون كعبسا برب سبحانه وتعالى تلمامي فرعون ميو هري ميو كعب رقات ميو صورة يستي وربدي لما إني منك هرتاجني وحن وضد كده حصاري وامح إنه هو زوجته يو إله نمته أودنا مليه فرعون باته واحد نماذج الأوريين سوى جحود يين الدنيا مركز عدو كتل يسوع وهذا مركز حوي قد يقدر نوعاس كم عبر قاضي وضرقه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشي markii kii ugu dambeeyay uu badda soo galay ciidankii fircoon kii ugu horeeyay uu bartamaha maray ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala hal mar isku dhuftay oo badii la isku laabay qawmu fircoon iyo nabi musa way dhaafeen qawmu musa iyo nabi musa alayhi salaam way dhaafeen oo way ka gudbeen waxa uu isagu soo haystaa marka uu badda iyo marka waxa weey nimanka u muuqda ee sii socda uu marka daba galayo inuu gaadhay wuxuu haystaa inuu sidii u adoonsan jiray u adoonsanay wuxuu haystaa duqyaanka iyo xadgudubka iyo awoodu inaan dhamaad lahayn waa qofka dictatorka ah kaligitaliska ee marka mulki iyo maamul iyo hanti hela waa sidoo u fakarayo illa uu ilaawo inuu aadam yahay illa uu ilaawo inuu aadam yahay bili aadam inuu yahay dhamaanayo oo maalin ma ka wada ka tagayo mulkigan illa uu ilaawo dictatorradii carabta qaar kamida laga sheegay mid kamida ayaa askari yar oo dable ah waa xabad ku dhuftay isagoo isla markaa ciidan baad haysataayo wadankaas ka talisaayo ciidba kuma dhawa intaas oo sanan uu fadhiyay askari yar xabad ku soo riday مش معقول بلي wuxuu qaadan leeyahay ninkii hebel ahaa faqamat ar-ra'iis ee isagoo kaliya aan hawlkiisa soo celin jirin askari yaro tabla inuu xabad ku soo rido xabad ay ku dhacdo xanuujiso ayuu qaadan lahay مش معقول بلي amr saadaat markii xabada lagu dhuftay yani dictatorku nazca fir'awniyya ba ku jirta marka uu mulkiga iyo maamulka isla helo markaas uu moodaya marka waxa weey inuu qof waaraya yahay oo aadamigan ka duwan oo aan xanuunsanaynin oo markasta marka isla yahay walaalayaal fir'awn markii marka waxa la halaagay ee nabi musa alayhi salaam la badbaadiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay wa aslafna thumma al-akharin dhamaan ciidankii fir'awn way soo galeen badii sidaasana ilaahay subhanahu wa ta'ala faghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum badii marka waxa qaaday wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in nabi musa iyo intii la socotay dhamaan waa la badbaadiyay nabi musa iyo intii la socotay iyagoon saxar gaadhin ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala uu marka waxa badbaadiyay waxa rabbi subhanahu wa ta'ala uu waxyooday nabi musa alayhi salaam in ciidan kan daba ordaya daba hooraya ayeen qaar marka waxa weeye qarqoomaya watruk al-bahra rahwa innahum jundun muqrawun katag balay badda iyadoo sideeda waa duul la halaagayo waa ciidan qarqoomaya weeyaan waxba awoodoodan iyo marka soo ruqaansigoodan iyo waxan ay ku cabsi galin waa ciidan marka waxa weeye qarqoomaya ay rabbi subhanahu wa ta'ala u tilmaamay marka markii uu ku soo dhameystirmay fir'awn iyo ciidankiisii badii ay ku dhameystirmeen ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ilaahay ku halaagay sida iyada ah reer bani israa'iil oo nabi muuse la socdana sidaas rabbi subhanahu wa ta'ala cadawgoodii darnaa ee sanawaadka ciqaabay cadaabayay ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga badbaadiyay oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu marka waxa weeye bar al-aman uu saaray wa rabbi subhanahu wa ta'ala uu tilmaamaya sifooyinkii fir'awn lahaa iyo reer bani israa'iil sidii loo badbaadiyay iyo doorashada la doortay ummadaas reer bani israa'iil markaas rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay walaqad najayna bani israa'iila min al-'adhab al-muhin dulligi iyo cadaabkii darnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka badbaadiyay waa ka badbaadinay ayuu tilmaamay allah reer bani israa'iil cadaabka dullaynaya waa ka badbaadinay yaa laga badbaadiyay
من فرعون بلغ بالبادي إنه كان عاليا من المسرفين هو مid markaa culuwi isla weeyay iyo xadgudub mid ay ku kulantay ayuu ahaa caaliyan min almusrifin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamayaa aakhiro cidda nasiibka ku leeyahay maaha cidda adduunyada isla weyn maaha tilka ad-daaru al-aakhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada ولقد اخترناهم على علم على العالمين بشر كي كلا ولا قدر ترى بني إسرائيل بشر كي زمن كودة شوقي إلهي سبحانه وتعالى رب بني إسرائيل وكدرت على علم وقال إلهي سبحانه وتعالى أصل من هذه حكمة حلير أي إلهي وكدرت حلقة رب بني إسرائيل لو درت ومدى دليسنيد كهوس نوريد مكان فرعون يقوم كيس كهوس نوريد إلا دليسنيد رجعنا مركب وحوي لا دون سنة يدمر كان مركب حوي لبنا سنة عروتنا سنة بقار لليني قارن لديني دول اللي كانوا عسكوي كشري يا إلهي أمتك هدي أمتها جامسة أنبياء لك صاروا فرعون يا مركب حوي ظلم جيسي لك هو صار أو مركب حوي وحي إلهي سبحانه وتعالى وكل لي أمتنا عاس طبعا حل جالس مركب خصوصا اختيار النوع ولقد اخترناهم على علم على العالمين أما هذه الأمة أمة نبي الله محمد إذا ما أنت آخر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس سيد الله سبحانه وتعالى تلمامي وحرب سبحانه وتعالى إليه وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين يعني آيات عظم يويني وصاحبه أي مرك إلهي سبحانه وتعالى ما نكع دحدي امتحان ما فيه بلاء لكن مدى بلاء القرآن كلام معنى وتي ما دا يظن معلّ وقت شيء يظل وقت شيء امتحان ابتلاء الابتلاء لوجه ما نكاس نبي موسى عليه السلام يقوم كيس سدا أي نكورن لو بدبادية فرعون مركا عيدا كيسنا سدا إنه كورنا له هلاقي مالك النوع عصبوها يوم عاشوراء طبعا كي محرم وحن النبي عليه الصلاة والسلام تلمامه إنه رب بني إسرائيل ما أنت وقم ظنها نبي موسى عليه السلام وهي وحين قلت أنها وحي إلهي سبحانه وتعالى حقي سكي وهي وحين رميصنا نبي موسى نبي محمد عليه السلام لا بدو دبا لا نفرق بين أحد من رسله كرجين من سيدة دراد النبي عليه الصلاة والسلام فنحن أولى بموسى منكم أنك يا كمضا النبي موسى عليه السلام أنا يا كمضا هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحق شرعي إن ماني كاسو كلي آن للصومي ماني لقاه الرئيسيو أي النبي عليه الصلاة والسلام شده مقصود كي يوجد كلو تشيدانا وإن لخلافه لقد ونادو أهل الكتاب كيهود كريشتن لقد ونادو أي مركا وحوي لو تشيدي إن ماني كهر يلا الصوم مركا ماني كسقالوتك يماني كتبنوتك إلا الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام وتشيدي وهي صحيح مسلم وحاكوي من حديث عبد الله بن عباس نبي في آخر حياته نرشد الجواب سيدي وحاول يريد لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع سنة كسوس عدا هدي الله يجارسيو وحان صوم يا رسولك صلى الله عليه وسلم ويري مانك السجارات مانك تبنات كهرية لئن بقيت إلى قابل سنة كسوس عدا هدي جارب رسولك يري لأصومن التاسع مانك سجارات كهرية تبناتك وانصومية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيها عليه الصلاة والسلام متشعل إنه وافقه كريستان كأيو مركا يهود إنه وافقه وشعلا في أول الأمر حلقي مكلة شوقي تذكى صنم كعابود يقول إحنا وراء رسولك وحو شعلا كريستان كيهود ما دام أهل كتابه إنه وافقه مركا إسلام كفافي مدينة ليمي أو في ضي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو شعلا إنه خلافه وكدوا ونادوا سيدا مركا وحوي ديمها يسوق جنين وأنا يسوق من أما مركا انحراف
oo imanin oo aan markaa waxa weeye la moodin inay isku mid yihiin maadaama wax badan ka midaysan yihiin sidaa daraaddeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaaday inuu khilaafo ilaa markaa yahuuddii ay yidhaahdeen ina hada lan yadaca lana shayئa min diinina ila khaalafana fiih muxamed shaynaba marka waxa weye nooga tegi maayo diinteeda ka mida ilaa uu nagu khilaafaya uu nagaga duwanaanaya sidaa daraaddeed waxaa mustaxaba qofka soomaya maalinka tobnaad inuu raaciyo ama ka horraysiiyo marka waxa weeye maalinka sagaalaad inuu ka horraysiiyo soomidda la soomayo yowmu caashuuraa waa saddex martabadood siday culimadu tilmaamayaan sida xaafid ibn xajar ibn qayim iyo keyrkood ba ay tilmaamayaan saddex qaab baa loo soomi karaa maalinka marka waxa weeye tobnaad ee berri ah qofku inuu soomo maalinka sagaalaad maalinka tobnaadna uu raaciyo maalinka koob iyo tobnaadna uu marka waxa weye ka dambaysay oo saddex casho marka uu soomo oo ah 9 iyo 10 iyo 11 waa martabada koowaad weeye martabada labaad waa inuu labada casho uu ku koobnaado sagaalaad iyo tobnaad inuu maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad ku koobnaado martabada saddexaadna culimadu waxay leeyihiin inuu soomo maalinka tobnaad oo keliya inuu soomo maalinka tobnaad oo keliya inuu soomo intuba marka way bannaan yihiin laakiin way kala fadli badan yihiin intuba way bannaan yihiin oo waa sunne cashuuro keligeed inaad soonto waa jaa'is bilijmaac yani wax bannaan oo aan khilaaf ka taagnayn wey culimada muslimiintu isku waafaqsan yihiin maadaamay bannaan tahay maalinka cashuura in keligeed la sooma ay bannaan tahay waxaa ka fadli badan inaad maalin raaciso oo ah maalinka sagaalaad si aad u waafaqdo nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadii uu tamaniyey ee aanu gaadhin ee yidhi haddii aan markaa maalin sanadka soo socda aan gaadho la asuumanna taasic marka wakhtigaan ku sibino nebigu waa geeriyooday laakiin sunnadaasi waa sunno qaa'ima maadaama uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tamaniyey waxaa marka ugu fadli badan in 9 iyo 10 la israaciyo qofku maalinka keligii in uu soomi karaa maalinka keligii in uu soomi karaa maalin ka dambeeyana uu samayn karaa haddii maalinka sagaalaad uu awoodi waayo maalin ka dambeeyana imaam axmed iyo imaam shaafici raxmatullahi tacala calayhim iyo keyrkoodba waxay tilmaamayeen maalin ka dambeeyana uu soomi karaa si uu markaa sunnada nebiga u waafaqo ee ahayd maqsuudkii iyo ujeedkii loo jireeyey in maalinka sagaalaad la raaciyo maalinka tobnaad oo ahaa in yahuudda la khilaafo mukhaalafat ahli lkitaab waayo waxay ku xasilaysaa siday ugu xasilayso maalin ka horreeya baa waxay ugu xasilaysaa maalin ka dambeeya ayay ugu xasilaysaa waxaa kaloo walaalayaal sunno ah marka waxa weeye in la badiyo soonka bishan muxaram waayo nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sidaynu horan baa u tilmaannay soon la soomo oo ramadaan ka dambeeya oo soonka waajibka ah ka dambeeya waxaa u fadli badan soonka la soomo bishan muxaram soonka la soomo ayaa u fadli badan waxyaalahan baraarujinayna waxaa ka mid ah maalinka sabtida ah axaadiista qaarkood baa ku timi oo culimada qaar ay cilleeyaan inaan keligeed la soomin berrina waa sabti waana cashuuraa abi daa'uud iyo keyrkii waxay soo warinayaan sida tirmidi iyo abi daa'uud xadiis marka waxa uu tilmaamaya laa tasuumuu yowma asabt maalinka sabtida ah ha soomina ilaa fiima ifturida calaykum wixii laydinku faral yeelay mooyaane fain lam yajid axadukum ila lixaa'a cinabatin aw cuuda shajaratin falyamduqhu qofka haddii aanu helin wax yaroo marka waxa weeye canab geedii ah ama marka waxa weeye geed ah waxaa yar caleentaa yar mooyaane caleentaa ku afur baa la tilmaamaya marka xadiiska sixadiisa marka waxa hadal baa ku jira culimada qaar baa daciifiya qaarna waxay leeyihin waa mansuukh waa la nasakhay qaarna waxay leeyihin waa shaad axaadiis ka saxa badan buu marka waxa weeye khilaafsan yahay waayo axaadiista qaarkood saxiixeynka ku yimi sida xadiiska maymuuna waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayaa uu weydiiyey maymuuna maalinka jumcada in la soomo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi miyaad shalay soonto maymuuna waxay tihi shalay maxay ahayd khamiis bay ahayd maya maan soomin bay tiri berri miyaad soomaysaa oo berri waa maxay berri waa sabti markaasay tihi maya ma soomay kadibna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan fa afdirii haddaba afur marka waxaa laga qaadanaya xadiiska mafhuumul mukhaalafihiisa hadday maymuuni soomi lahayd khamiista oo ka horreysa jimcaha ama sabtida oo ka dambaysa in marka waxa weeye uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u fasixi lahaa culimaduna waxay isku waafaqsan yihiin
هدي مانك صبت ده غير كيد للصوم يعني مكروه هاي هدي حديث كلا صحيح يبا يعني مكروه هاي حديث كان إن مكروه لقى قاضي علماء الإمام أيان كراهة إن مانك صبت ده أصلا لو قاري من غير سبب صاب الآن إن مكروه تهاي حديث كلا قاضي علماء الإمام أيان ركوا حلوين ما دام صاب بشرته بريته لي صبت تهاي صابتنا أي تهاي إن عاشورتها إن عاشورتها ولا صوم كراهنا مله فإنه يصام ولا كراهة فيه ولا صوم هي وحكراهيا أنا مركب حوي مله ويوم عاشوراء صاب بيلها وحلقوا جدي يا مال أنت تسكع على المطوب إن العبادة كجارية شو أو ترى هذا سبت كستا وانصومنا سبت كستا وانصومنا ما دام الدليل حاصل أنا كوما ساس علماء مركب حوي تلمام أيان مركب هذه مالك الصوم كله جارية لو ترى هذا عاشوراء وبنصوم أيام سيادتك مركب الصوم كوع دقي هاي معين كله أما صوم كوع دقي هاي وكله إيمان إن تدرك كوسوم يبا تذكر عاصو حلينا سبت إسك الصوم كل جيد ويحكي كان مركب حوي وحكرها أنا ماله ما دام عاشورتها حساب لها وحسب فضل بدن مركب حوي ما لقوه الرئيسي وقفك مركب ما أنت صومنا إبريس صومنا وكفت لي بدن قفك كل جيد صومي عاشوراء قفك عاشوراء يمركب حوي أحد صومنا كوبي تبناد صومنا وكفت لي بدن قفك عاشوراء وكل يصومي ويوحي حقيقي إنه خلافه يهود إنه خلافه أهل الكتاب يحقيقي وأنا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وتشدي تاسوعين لو صوموا أنت سيروح خصيي ما نكاسون كذا إلهنا سبحانه وتعالى وحي ويدسلنا إنه خير كذا إن السيو فضل كذا يونا كذا رب سبحانه وتعالى نقول كلمة إلهنا نغيره كل عمل صالحة ودقدقة عمل كمركا باطل كأهل كل كذا إرادة رب سبحانه وتعالى هنغيره هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك